الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن شاء الله waxaan ku soo jiray oo akhriyeynay kitaabkii shabaa'il muhammadiya ee ka hadlayay nabigeena calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisii wanaagsanaa sidii aadaabtii uu nabiga laga soo guuriyay qaybo kamid ah ayuu kitaabku ka hadlayay nabigeena calayhi salaatu wasalaam baabkii waliba inoo dambeeyay waxaynu ka hadlaynay nabigeena calayhi salaatu wasalaam sidee buu ahaa weelkii uu nabigu wax ku cabi jiray marka nabiga calayhi salaatu wasalaam sida hadda maanta aynu arkayno nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa inoo tilmaamay weelku wax ku cabi jiray baa inoo sheegay laba xadiis baana ku soo aroortay weelka nabigu wax ku cabi jiray ayaa wuxuu ahaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam weel oo sida inoo tilmaameen saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaana loo soo saaray oo Anas baa wuxuu noo soo saaray weelkii nabiga calayhi salaatu wasalaam midkaasoo ka samaysnaa qori ka samaysnaa marka weelkaasoo marka lagu kabay oo kabnaa oo karkaraa uu karkaraa weelka nabiga calayhi salaatu wasalaam bixadiidin bir buu ku karkaraa markaasuu thaabit baa waxaa lagu yidhi oo Anas ku yidhi midkaa aan ku tusahayo wuxuu ahaa weelkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu ahaa walibana wuxuu sii yidhi midkan ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ku waraabiyey oo ku siiyey sharaab oo dhanba nabiga ayaan ku siiyey sharaabkii marka intii la tiriyey baa waxaa la yidhi biyo iyo nabiidna waxaa weeye timir la miiray ayaa nabiid la yidhahdaa timirta markii la miiray ayaa nabiid la yidhaahdaa iyo muxuu ahaa malab iyo caanaan ku siiyey intaasaa xilliga iyadu u badnaa oo la isticmaali jiray nabigeena calayhi salaatu wasalaam marka arrintaa ayuu ahaayo hal weel buu haystay halkaa weel sida maanta adduunyadani ay qof walba leh weelkani waa weelkii cambaha kan waa kii babaayiga kan waa kii biyaha caddaa kan waa wixii nabiga calayhi salaatu wasalaam weelkaa ma miri jirin hal weel unbaa caanaha lagu cabi weelasha hadda la kala qaabeeyey ee meelaha fadhiyada ka wada buuxa ee meesha wada yaala midba magac loo bixiyey xilliga iyadaa mayna jirin ma haysanin miyaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ereygaa culimmadu afkay kala wareegaan waayo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu yidhi ma ku siinaa buurahan dahab ma kaaga dhignaa marka nabigu nolosha isagaa doortay liikhtiyaara nabigu isagaa doortay calayhi salaatu wasalaam laakiin nabiga calayhi hadduu adduunyo doon yahay bal buuraha o dhan ii fidiya u dhihi lahaa waxoogaa ii soo daaya marka nabiga calayhi salaam adduunya dankama uusan lahayn maxaa yeelay adduunyaaba macnaheedu aad bay agtiisa ay ka yarayn waayo markaad dib ka eegto adduunyo iyo macno darideeda waxaa tusaale inoogu furan nabiyullaahi nuux calayhi salaatu wasalaam ayaa tusaale aada cajiib u ah wey nabiyullaahi nuux wuxuu noolaa 1,050 sano nabiyullaahi nuux oo 1,050 sano noolaa ayaa la yidhi bal adduunyo ka warra adduunyo bal ka sheekay intaa soo noolay 1,050 sano ka warra adiguna hadda waxa aynu ummadda nebi maxamed ninka la yidhaahda waa tegey ee jirkiisu ishayo ee nooli waa nin ilaa uun 60 iyo 70 iyo waxoogaa qofku waa yar istiirahayaa wixii ka dambeeyay hadda carab baaba tahayba wax nafoo badan aqliyaagii waa tegey war tororog ma kaa soo hadhi naf badan ma hays ciyaalnimaad u noqonay ilaa arda camri wey marka nabiyullaahi nuux oon doorsoomin oo xayi ah oo xooggiisii joogay oo lagu cimrisiiyey siduba ambiyada ayaa tusaale kasta loo soo qaatay tusaale kasto u baahani
ومد إلهي وحو دورتي خلقي وحو دورتي أيات تصال ليوصل دورتي وحو يهيبة لسور النسيين نبي الله له عمر دير بلسور النسيين بقول هو هاي كن تنصر مركز وحالي بالكور وحو يري قولي لبقى الباب له وانت الباب كاسو قال كان كبح الدنيا كمان يجمد وربي قولي الباب له انت كبح يجمد وربي انت صار نورا بلو فيرسو قار marka waxa lagu imtixaamay oo lagu jiribay in boqortooy oo la yiri boqortooy ka dambeysay nabi ilaahi Suleymaan lama siin qof kale maal iyo xoolo qaar ba quruxda nabi ilaahi Yusuf lama sheegin qof quruxda alaho kale la siiyay qof ba tajriba la soo qaaday dhan walba loo fiiriyo adu dhankaad ka eegtaba qof ba fiqri qof ba toliyari iyo wax u gargaar lagu ibtireeyay sida nabi ilaahi Luut oo yiri hadaan heli lahaa awood iyo qabiil hadaan lahaa qolada waa iska dhicin lahaa doonaysa inay muxuu ragga martida inay wax ka daydaan oo fiirsa marka waxyaabo kasta tusaale diinta ku fiican wax fahmayso wax kala garanayso qof kasto wax garanaya bal dib u adduunyo waa laga tagay aakhira ka dambaysay ilme qalbigu ha ku gariiro sida ku haw وكان النبي عليه الصلاة والسلام وحال يري باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكهة هذه هي النبي عليه الصلاة والسلام وحيابه فاكهة وحال هذا وحيابها إن وحوجا لو راح يستو قدرت فروت وحيابها فاكهة هذا وحدير هذا وي قف مكو وحوجا أنت كرير هايستي وحوجا مكوس آدو يرجع تسنين هذا أنت تقوى قبلنا بيجوا يهيبوا قوس الذين بواسطة لكن أنت بروح استعمالها وحوجا واحد ديراد أو بروح بعروش يكوير دتيجيو هذا بريس بلدعي باستا لدعي وحرق بلدعي هيري بلدعي وحوجا واحد قبوتشيا صغير مركز النبي عليه الصلاة والسلام في فكان العنشري محياه حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاوي حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال وحير كان النبي عليه الصلاة والسلام وحوها يأكل مدعنا القثاء قرأ أي عنشري بالرطب وحكو عنشري رطبك تمرتو عنشري يعني قروه وقبويه صومها قروه ما داموا قبويه ولو بعر كتيد عنده يعني بعر كتيد بعرك القثاء بعر كاسي النبي عليه الصلاة والسلام كل عنشري iyo isku la cuni jiray timirtu soo qaaday timirtuna waa kurushahay bocorkuna waa qabow yahay marka la isku daro ma sha Allah bal tijaabiye timirta soo qaada la gooso soo qaba xababkana la qabo qabow la qabo ma sha Allah afku deeynahay hadaba wala ku bil afurka ku bilaabay cuntada ka xidhay marka qofku markuu sida yeero saasa looga baahay marka كان النبي وحوها يأكل منعنا القثاء بعركتيتك بالرطب وكل شيء تمرت أيو كل شيء ساسو يشري شيء بناني وحديث صحيح وين حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عائشة وحيت الحاسك النبي عليه الصلاة والسلام هي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل عنشري البطيخة قرأ أي عنشري بالرطب رطب كتير بكل عنشري هذا محيم يعني بعركتيت كده تير بكل عناي قريه هنا محوك عناي تير بكل عناي ما كان إني بنانته أنا واحد مشكلة على الهاي إلا يسكو جوستاي إني بنانته أن النبي عليه الصلاة والسلام كان وهو يأكل مدعنا البطيخة قرأ أي عنشري ومحوك عنشري بالرطب تمرت أي كل عنشري أو كل جوسنشري حدثنا إبراهيم ابن يعقوب حدثنا وهب ابن جرير حدثنا أبي قال وحير سمعت حال مغربي حميد بان مغرب أو قال وحير حدثني حميد لبدا شك راوي كم مقري أما إيش شيء قال وهب وحير وكان صديقا وحوها نرف بضبوها له يسوي نرف بضبوها عن عارف بملاد بوكي قال وحير رأيت واركي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان أركي
أو يجمع كل منها هي بين الخربس يسقى أو هو هاي قرو يور رطبي رطب يقرو خربس نحاول وقركر وهو معيد قراه مرحك بدوي مركا خربس iyo rutabi nabigu isku darahay labadu saa soo bar waa macnuu bukeeni labadoodu isku dari jiray oo saa ayuu isticmaali jiray raaytu rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam yajma'u isku darahaya bayna al-khirbisi baalka la yiraahdo qaraha iyo rutabi timirta isku darahay oo la soo urahaya حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي حدثنا عبد الله بن يزيد بن سلطة عن محمد بن إسحاق عن يزيد ابن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عائشة وحيتري أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل وعن البطيخ وقرأ يوعني بالرطب تبر يوعني وصوم ريو لو اسكو دري حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس هذا وحيد نري لما معنا ولا يري إذنكوا هذا يكون سنة كتاب كله سنة مرة أدو سنة لهاي نادو عن كوريريا بمرة لكن أنا سنة بطرين هياو أبتر كيس يمشوا ككاني وشيء هذا ترين هيا لكن كوي إن أنت بدن ولا سوق جابيو أنت أما سحابي أما نيك كوحيجا أيها لقى سوقاتي مركز تحويل السنة بالهلايو سنة كي هو مركو مال كاني أو صوتريو هذا إذنكوا كتاب دار عيسى على ركتان على ركتان هذا الدكشين اللي هكذا راجنين كهي الميزاني marka xaada meesha ku qoran waxa weeye ninba wuxuu ku leeyahay okay hadalkan waxa ii sheegay umarna wuxuu u sheegay calina wuxuu u sheegay ahmed markaas wuxuu ku ahmed u istaajin markaas wuxuu dhigay hadana sanadkan waxa ii sheegay muxyidiin waxa ii sheegay maxamedna yaa u sheegay ahmed marka maxay isugu yimaadeen ahmed bay isugu yimaadeen oo laba markuu soo tiri ama ka badanba ninka la isugu imanahayo markii ninka la joogo ayuu wuxuu dhibariyo jooji sanad kala hayaa war kala ku ka soo maqnaan ku dariye si lagu adkeeyo way waadoo yiraahda hadalka waxa ii sheegay sheekh Nuruddin baa ii sheegay haye ma sha Allah warka ma haysa inaan ka maqlay hadana waxa kuugu darahaya sheekh Cabdiraxmaan ayuu igu wad isna ii sheegay warkaas oo ma daydaysid laba shay buu leeyahay laba meel laga soo kala qaatay tahwiil xaad marka saasi u taagan tahay marka wuxuu ka wadaa markuu keeno yiri Qutaybah bin Sa'id an Malik ibn Anas markuu yiri ayuu halka istaagay qadana wuxuu yiri وحدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معنا حدثنا مالك بن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مركو هالكا مرهي أيوه حكي قال وحيري كان وحوها كان الناس تطوح هاي إذا رأوا هذي أركان أول الثمر من أوري مركو أركان أولو صوبحي جاءوا وحيوا منها به منه بيوكيري تشرين رسول الله رسول كلا أي يوكيري تشرين منها أوري مركو صوبحه أي النبي بيوكيري تشرين فإذا أخذه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال تشرين قال وحيري مركا رسولك مركو قال وحورنشري اللهم الله يو بارك لنا نو بركة في ثمارنا منها نو بركة وبارك لنا نو بركة في مدينتنا مقالنا نو بركة وبارك لنا نو بركة ونو وناكر نو فعنا في ساعنا وحلو بيغنا هي أو وحلو كلام يسنشري ساعة بالي هذا ساعنا نو بركة وفي مدنا سورة متكر وحلو بيبته إله مد كان نو بركة يجري اللهم الله يو ساس النبي يجري إن إبراهيم النبي الله إبراهيم عبدك أدون كاجيوي وخليلك صاحب كاجيوي والنبي كالنبي كاجيوي وإني علونا مرك النبي محمد عبدك أدون كاجيبان هاي والنبي كالنبي كاجيبان هاي وإنه مرك النبي الله إبراهيم دعاك وأدعي لمكة مكة أدعي مكة أدعي وحيري ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة سورة إبراهيم يعني محوك أدعي وأدعي وحيري
ربنا يا ربنا ربك أيو إني أنيقو أسكنت وحاندتي من ذريتي أولادي وحاندتي بواد وادي غير ذي سرع وادي عن محبب الهين دا عن الهين بير عن الهين بدتي عند بيتك المحرم ماشي حرم كأه بيت كأجا أكتي سأيان دتي ربنا يا ربي ليقيموا الصلاة صلاة الأوجان بانو دتي مركز الدعاء ويسي ويدو إلهيو ضدك هاوي مادام ضدك مركو إلا ويلكي إسماعيل يهويدي مركو ماشي دقا هيوي أي مركو دقاقي أي الدعاء ودعايستي قفر هذه التشريع الدعاء يستوي مركز النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله إبراهيم ودعيي ومكو دعيي وإني على مركز أدعوك وحن كابريا أو دعينا هيا مدينة أي الدعين مدينة منورة ومحوها هاي مدينة أدعين بمثل ما دعاك سيدا وكوبري به إساق لمكة مكة ومثله وحلمده معه لدير أو ديرانا وان كبري إله سبحانه وتعالى إلهي بان كبري عدو نساس ويرو إله أدنو حان كبري هيا إلى المدينة وكالكالكتو سيدا مكة أو كالك سيدا يتهي وحلمده inaad ka dhigto dheeraad kala u siisay waayo nabiga sallallahu alayhi wasallam Madiina markuu tagay Madiina meel hawo xun bay ahayd walibana markay yimaadeen Qurayshtu ay timid oo Madiina yimaadeen waxa ku dhacday waxa la yiraahdo muxuu ahay daltabiyo wax leeyahay daltabiyo ay yaqaan homesick oo ka ingiriiska soo deysay kaasad garaysaa ma sha Allah homesick gaasi marka daltabiyo la yiraahdo qofku markuu sameeyo usan aqooni yimaado daad waay qof markuu safarka yahay salaadaha inuu gaabiyo iyo looga reebay salaadaha jaamacaadka istagahay iyo jumcada uu tukanahay iyo waxyaabaha soo dhari inuu gurigiisa iskaga tukado ama salaadiina gaabiyo fursadahaas loo siiyay sababtu waxa weeye dhulkaas uu ku cusub yahay waxa xataa Abu Bakar uu qandha jiray oo qandha xun qabatay waliba gabay uu sii daayay oo u hiloobay marka u hiloobay markii qandha xun qabatay markaasuu nabigu bariyo wuxuu yiri ilaahayow qardhadan iyo xumada iyo aafada dhaxtaala muxuu ahaa Madiina dhaxtaala ilaahayow meelaha godadka ku ribuy ilaahay buu uga bariyay waa laga qaaday marka shaxshax hadda marka aragto iyadaaba marka hadda tagtay ilaahay ayeen sakhura tagtaan qofka qalbigiisu iimaan ka buuxo hadiya jeer qalbigiisu waxa ka buuxa ilaahayow maka tagti ilaahu Madiina tagti soo aragti dhulkii aad soo aragtay qalbiga buuxa qofka iimaan buu leeyahay khayba yaada lacagtii aad weyde laakiin qalbigaagu waxba ka buuxa laakiin hadaa wadan ba karayn soo aad ka tiraahdo lacagtaas oo afka taagta ka wadan karayno oo kistar heelato oo sharwar musubiye baa ku soo gadiye dan baa ka gariin qofkaas waxa loo yaabaa weey laakiin qofka iimaankiisu inuu xoqo hadiya jeer maalin hore waxa ay sheegay moogtaa xajkan anoo ka shaqeeyo dadka xajisiina dhalinyarada xajida oo dhisay u badan yihiin waalidkooda baa ka xaynayo xogaa islaanta tiraada kaalay aad garab iyo qabay islaanta yar ka haysato wadada ku marta oo iyo duqa ama ila kaalay iyo wehriyeen laakiin waxa yar oo aad u yar in dhalinyarada hadda xajka ku jiray dhowr sano hadda wax la waday nakare in dhalinyaro oo dhahaya xaj baa u socda u soo diyaar garow ayay إلا أولاد دمك ويسوع اللي يدو قلبي وقوم اللي باتك قلبي يبا سيدو ضوفار يداير عليه يبا قلبي ينقي مركا واحد في عم فاهم بين عوالده لما لو قدر واحد بالسوق يمحام عليه ولا صومالي هذا البلدي قال ويادو ورق بيكون هذا احاديث هذا كل عيله دد بيقول دبي ما قلبي ودبا ميل كرو جيران بلا يكرهو مشخوصا قلبي سيسو سيده انه هذا انه كو برن جيري markii احاديث la akhrinayo wanaga rafaasa waliba احاديثta saa u badna marka akhrisan jiray soon baan akhrisan jiray iskuulka inta badan waa la xiri jiray bisha soon aadi jiray adiga waliba quraacda halka ka saaran tahay oo hadhow afurka aad sugaysana ma maxaad mooysaa hada sambuus iyo aduun iyo biyo ka dharkaysan hadhow waxa laga yaabaa guriga marka timaado dabba inuu iska washidan wax cunto uu jirin biyaha cad aska bataa hadii oo bato mushaali waxa la yiraahdo masagal la tumay oo biyo laga buuxiyo inaad laba jeer ka bato oo naf aan lahayn war waxa la soo maray cilmiga lagu bartay haw maraynina haddana waxa la idin kala kaalaya barta kitaab soo qaadan maysi dib u raacan maysi dad arinba kuuba jirta hadda inaad intaan akhrido ummad aad barto anigu arabi intaan u qaadanay intaan sabura tagnay arabi ka weyn lagu baro kitaabada inta ka aqsanay hadda inta kitaabkan soo akhrinayo arabi soo sheegay qofkii fiican arabi intuu qorto ayuu bedeli
oo afkiisa ku bedeli oo ingiriis ku bedeli oo hadhow dadku u akhrini laakiin haddaad danbaba ka lahayn ka war oo war inaga socodsi aad tiraahdo oo jecesha wax walba ingiriis lagu bedelo ingiriiska shalay maad aqoon ma bartoomo shalay adoo waxba aqoon oo markii lagu yiraahdo markii loo fiiriyo marka wax walba waa la bartaa oo ma carabigu isaga ka fiican waliba higaadsanaya ingiriis ma higaadsanaya intiina hadda warqad wada qor hadda laxad ka buuxinaysa soo moogin waa isku ognahay hadda la qor hadii la yiraahdo laxad digsideeda ay raadsanaysaa iyo maxaa loo qoray waa ima higaadsanaya run ma soo sheegay run ma ingiriisku hadda wuxuu ku dhawaaqay waa beel ururiyay way soo ma wuxuu ku dhawaaqay waxa la qoray inta badan waa kala gedisan yahay waa inaad qofka afkiisa ka xado laakiin carabigu yaa badan aqoonin hadduu qofku ku dhawaaqo ku yiraahdo waxaa tiri qor af Soomaaliya waxaa tiri ma qori oo higaadsamaysa qof walba uu akhrin karaa maana yuusa garan marka luqadan waa luqa ma sha Allah way marka yaa la moogaan كان الناس تدخل حي مكة نبينا عليه الصلاة والسلام أنا صار نقولنا نبينا عليه الصلاة والسلام أيها تدخل حي هايين بالير مركي أي أركان إنه صوب حي مريه أو وأنا ما يحديثك مثل ما دعاك لمكة ومثله نبي يقول حيري مكة سيدو أوغو بريي دعادو كبري مكة مثل مذا iyo mid lamid ah iyo mid kale oo la sii jirta ayaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala Ilaahu kaaga baryayaa Madiina qaala wuxuu yiri thumma yad'u wuxuu u yeeri jiray asqara walidin ilmaha u yar buu yeeri jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam ilmaha yar buu yeeri jiray fayu'tihi wuxuu siin jiray dalika thamaru mirihi ayuu siin jiray ilmaha yar wuxuu dhigi jiray هو أمرك عن بليش النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس ضدوا وحي هاين إذا رأوا مركي أركان أول ثمرة مرة أهرى إن صبحان جاءوا به وإلى ابن شرين رسول الله رسولك إلى يوم ابن شرين فإذا أخذ النبي عليه الصلاة والسلام وقاد شرين فإذا أخذه مركي وكقاد شرين رسول الله قال حرن شرين اللهم الله يوم بارك لنا نو بركة في ثمارنا مرهنا نو بركة وبارك لنا نو بركة في مدينتنا مقالنا نو بركة وبارك لنا نو بركة في ساعنا ساعنا نو بركة وفي مدنا مد كان نو بركة اللهم الله يو إن إبراهيم النبي لا إبراهيم عبدك أدون كاجي وي وخليلك صاحب هوسات كاجي وي والنبي كالنبي كاجي وي وإني أنغنا عبدك أدون كاجيبان هاي والنبي كنبي كاجيبان هاي وإنه دعاك وكبري لما كتمك أي كبري وأدعي نبي الله إبراهيم وإني أنا وأدعوك للمدينة مدينة أيان الأبر يهيا وأديك عن كاجبر يهيا إلى المدينة مثل ما دعاك سدو كوبري به إساء لما كتمك ومثله وحلمده يوم معه وحلتشله وإنت إلا قدرين قال وحيري ثم يدعو يري أصغر متكير الوليد المهير بو يري شري يراه أركايو يري شري فيعطيه حسين شري ذلك ثمر منها يسين شري حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيد ابن محمد ابن عمار ابن ياسر عن ربيع بنت معوذ ابن عفرة قالت وحيتري حديثك انت انا تتوينها يوم ضعيف قالت وحيتري بعثني وحي بحيي معاذ باي بحيي ابن عفرة بقناع بوئيدي بوي بدلا او بقناع وحيي كان دبق او من رطب كسبيسا وعليه طبقنا وحاكو جري اجر تمر تاسو من قيثاء تمر تاسو وعليه وحاءها أجر باكو جري إيا من قيثاء بعر كتيد إيا زقب هو كاسو زقب عرضا وكان صلى الله عليه وسلم يحب وحوش على القيثاء بعر كتيد أيو على فآتيت به وانو كيني وعنده هنا أكتس وحاهيد حلية وحاهيد اسكوشو قد قدمت لغا كيني عليه من البحرين بحرين باللغا كيني فملأ النبي وابي وحيي
يده قعنتيسي منها أيو كبوحيي وفاعطانيها وإسيي ماشاني لبا شيء بقى كتير oo inaad fahantaan labada shay waxa waaye marka koobaad nabiga waxa laga hadlahayaa waxyaabaha uu cuni jiray waan soo maray oo qitaa waan soo maray boqor katiib ujriguna waa isaguna waxa weeye waa qaybo isku jira oo waxa boqor katiib iyo qara iyo muxuu ahaayay isagoo urdana waa zuqri waa isagoo urdan ma taqaanaan urdanka maxaa waa shay markuu soo bislaanin soo mina fahmi shayga markuu soo bislaanin ayaa urdan la yiraahdaa wax yar marka oo qitaa isku dhaxtiyo la googooyay ayuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayuu ii soo diroos ii dhiibay gabadha oranaysa markuu ii keenay nabigeena calayhi salaatu wasalaam agtiisa arintaan waxa agtiisa yaalay isku joog oo macnaha xulli ah oo ayaa yaalay oo meesh ag yaalay nabiga marka deeqsigu ahaa gacantiisa intuu saa u qaaday isku joogii aduu ka samaysnaa ayuu saa igu ridaysiyay buu muusan xabad igu qaadin marka xadiiskani waa isnaaduhu dhaif bali sababta lagu dhaifiyana waxa la yiri waxa ku jira Muhammad ibn Humayd al-Razi ninka ayaa ku jira وهو حافظ ضعيف وحافظ لكن ونسك ضعيفة وهذا نسك تبردرا وكان ابن معين حسن الرأي فيه وكذبه أبو زرعة وحكو شيء إنه بين لويه أيو قتل معمي بخاري وحوي فيه نظر نكا وحاكسو جنبا نظر أركت وحاكسو إنديب لو شك بحكسو جنبي يعني سجى حديث كيسة وقال في الميزان وفيه إبراهيم ابن مختار وحنا كل احتياج يسوي نكر كتير وحاوية نكا إبراهيم ليدا هذا وهو صدوق ورشو بس ضعيف الحفظ حفظ جسايا مركو حفظنا هذا كلام دمين ما تقنا دمين ولا ما تقنا وممكن ما راح أعرفه يا حكر المكان بود إن الدعم وين زو ما قلت دمين بالله هذا ومحمد بن إسحاق صدوق ويسور وصدوق ولكنه مدلس انت صدق على بعد أحفظ ده وحاوية حديثك وحقود دردرا ولا نشيلين أو ماشي أن كوتشين يدحتين بيا مدلس بقال لي هذا قفك وحوجا ورا البيت كوتشين دحتين بيه وقد عن أنا هذا هو عن عنيو حديثك صوابه كمل وحاوية عن هبل البكوريين وأبو عبيدة نكري هذا مقبول عند المتابعة هذه الراعو اللي هذا قف دبا قال له هلاي وقف لقادم كرويسة مركا أرنت حديثك سببتها أيا لو سميي مركا حديثك ضعيف مركا وحي تري قبضني وركا سائل وجود دارسي حديثك النوع عاسى وحي تري عن ربيع بنت معوذ بنت عفراء قالت وحيتي بعثني معاذ بن عفراء أيا يدري نكا معاذ لي هذا معاذ بن عفراء وهو عم ربيع بالي هذا وهو صاحب الجليل وانا صحابي أوي بقناع وحاله والدبق وواحد ماركتي ألابت كركة وحلقة صار وحن ماركتي عمتدا وحن لقول في المحل هذا marka lagu qaado qudaarta iyo waxyaabaha yar la saaro kaas ayaa la yiraahdaa biqinacay kaas ayuu ahaa oo min rutab ka samaysan وعليهنا waxa ku dhex jiray oo ka dhaxmidaha ujrun waxa ku dhex jiray qaraha wali midkiisa yar yar ka ah ee uu ku saabsan min qitha'in ba ku jiray oo badal bay ka tahay oo bocor katiidna uu ku jiray رقب أو يسوي عردنا أنت ما فهمتين واحد رياض يكون عصب وحاوية ورياض إنه اللي يلاهذون أجر إياه قطاع إياه رقب زقب إياه أنا ما أساكمل وكان صلى الله عليه وسلم وحوها يحب المتش على القطاع بعركتيت كتشعلا فآتيت به وأركيني وعنده أكتس وحايلي حلية باتها لإسكتشوجيو قد قدمت لو كيني عليه إساق من البحرين بالله كيني ودنك البحرين اللي يراهد أي هذا هو ودنه لكن بريقا وبحرين ودن ما تشيرينه دول اسكو فرنبوها
فملأ وابوحي يده قعنتيسي منها يده كبحي فأعطانيه وعسيه هكذا منها قرن. حدثنا علي بن الجعري حدثنا شريك بن عبد الله بن محمد ابن عقيل وإذن كان يكبر الله واحد بقى ما قبل لكن وحان إصلاحها الحديث كان مركب ضعيف لقوله صوابت أتكفها مكرتون هدو طلاب علم قفك وحوس كدي إن وتلمام كذا ولا كلا فهم بدي حديث كان يقول كان ضعيف معه عندنا حجة دو كينيو والهبل ما مش نحفظه ويو ساسان مقلهي لكن هذه وحن هذا ونقص وقاته وصحابي يكرب الله وهذا هو ضعيف عنه واسيد يقول على صوما بريا أحاديث السر بالله بهي أيها وحن النقل حدثنا علي بن أبي طالب وكان صوم كاسا وضعيف والشيخ علي بن أبي طالب وضعيف ما كان ديس إلا مرك قفك ويبرو شيخ انتو كتاب قاضي ومصطلح حديثنا باللعبة مصطلح حديثنا وآلة لو كراسفية حديثنا قفك وبرري قفك هذا هو ضعيف النبي باشي قو حلقة بين قوة رسنتاي وهذه النبي قبل لقى الشيخ محمد ضعيف رهيا والنبي قال أنا ضعيف رهيا يدبكم لما جماعة النبي قال لقى ما حد ضحية صحابي قال لقى ما حد ضحية لكن رجع كدم بيا صحابي قال وركيز ولا قادر وحير هذا واي صحابة النبي عليه الصلاة إلهي عدول ومقاتك عاي لكن رجع كدم بيا أيها اللي دبت هاجية وحديث النبي وحير وخلق يبقى قدره مركز شيخ رئيس وفي عيادة سيا كنت أقول عديسنا حبك ما قبل أنت عن صو نفط يقص بحث سوا كي يريسر الله برك وديه إن المعقيل عن معاوذ بن عفراء وأصل حديث كيوي آتيت النبي أيانو كيري بقناع بارو كيري أو من رطبة وأجر موانو كيري قرأ أو زقب أو عردنا في ملأ كف في ملأ كف أعطيني وحيسي في ملأ كف بوسي قعن بوحدة حليا أو قال وحيتي ذهب بوسي قعن بوحدة ذهبا أما حليا يسكتشوغا أيو يسي بيتنا عليه الصلاة والسلام حديث قال اسكو كثير ضعيف. باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه حديثان نبي عليه الصلاة والسلام قاب عبيتان كيس وحو عبي جري سيفي عنها لين دغيستو markii hore nabigu sharaabku cabbi jiray waa soo mar laakiin hadda xadiiskan halka maxaa loo soo celiyay nabiga sharaabka markuu cabahayo seebu u cabbi jiray ma banaan tahay marka wax la cabahayo idinka la idin baahan inaad ku dhaqantaan xadiista inaad fahantood ku dhagto ma banaan tahay inaad istaag ku cabto biyaha noqoto cuntaha noqoto ma banaan tahay وانا هو يديسو وهو البود اسكلقوا الماء كل ما هب الدم اسكلقوا الماء فدق ما بنايه wax lagu cabo qadqadaad in loo seexdo ma banaanta wax lagu cabo dhinac ma banaanta in wax lagu cabo waxaynu soo maray inayna banaanayn in qofku soo dhinac u jiifo uu cabo waxna cuno dadka maxaa loo badan yahay inta taa u seexato isdhacaayso isu qolooyso oo taa isu seexdaa biyaha afka ku shuy waxaan banaanayn qofku sideeduba waa in lagu baro lagu yiraahdo sida baabanna maxaa loo leeyahay waxa laga yaabaa inaad tiraahdo maxaa faa'iido ku jirta maxaa macno hadda ay keenaysaa haddaan fadhi cabid soo masoo ma cabahay hadii xadiis saxiix nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday macnaha aadaan fahmaynin waxa lagu faray hadaad la iman weydo oo dilkeeda la timaado adduunka imtixaankiisa waad ku arki doontaa حكمت وين وأدو فاهمين بقى كتيرت هو أدوه آدم قرني ثوابت اللي جودي وليه وحيابه عافمات كشقله عافمات كشقله ما كل ولا جعنت بدي وحقوني مرك اللي وليه محوها أدوه وتشيفه وحقوني وفرد الله فريس اللي وليه عافمات بقى كتيرة عافمات كاجي عايا كتيرة حل جايدا وأنت أصلا كهر النبي عليه الصلاة والسلام ومدة عافمات كيس تلقرين شري نبي مركو كليه qofku marka uu seexanayo gacmihiisa ha dhaqo maxaa loo leeyahay qofka waxa laga yaabaa bahalla waxa jira cuntada hadhaaga ee ku hadha gacmaha ku hadha cuna
وهبينك انتي كو عفوفان وليبا قاركو انتي دريي ميت ku yiraahdaan ee farahaaga cuni waxa laga yaabaa jeeris bayna kugu reebaan marka hadhowna adiga hurda afa gashata marka waad hurda isma ogida waad seexatay Soomaa isma ogida kolba waa galgalanaysaa afkiinaad gashato cudurkii marka uu jirkaaga ku faafa marka waxaan ku taabtayna uu cudur iyo bacteria ku gudbiyay bacteria taabi kartaan inuu bacteria kugu dhacday marka diintu waxba ilaalisay marka u fiirsan marka nabiga sallallahu alayhi wasallam kayfiyada uu sharaab u cabbi jiray say u cabbi jiray حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمر عن زهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت وحيتي كان أحب الشراب نبي الشراب كأوتشعلا وحوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الحلو وحمعان البارد هذا رقبه سموه تعيدين وعن تعيدين ما يوجد حدنا معان ولي حلودي نكتة تنقر تنصمها اسكيب الدا وحن كان لميري بيها لو شو هذا مركز مقاحيا تكتان سو بحالة لميري تشوس كما ادم عبتان معانك بدل له يوسو علي سمتر هذا يعني ددك نجرا بنو ادم كسيودو waxa macaan uu jecel yahay sida dadka caadiga ah laakiin halkaan waxaan u nimid wixii macaanaaba cudura Sooma cudur baa lagu sheegay laakiin waxa walba inuu isu miisaamo oo macaan kana aadan badinin ti alla timaada loo baahayaa kana ahabu sharabi nabiga cashad dhulka uu ku noolaana waa dhulka adduunka ugu fiican buu ahaa adduunka marka la isku duuduubo maka ugu fiican adduunka ilaahay meel uu abuuro maka ka fiican ma jirto dhulkii noocaas ahaa adduunka hadda wuu fitay oo kolba dhulkan hadda waxba la helay hadda lagu haysan miyaad maqasheen dhulkan al-Hijaaz iyo dhulkan muxuu carabta ku nool yihiin waa la helay miyaad maqasheen waligeed bal siirooyinka dib u akhriya waa dhulkii ummadda lagu beeray lagu noolaan jiray ummadii nabiyullaahi nuux laga soo bilaabo nabiyullaahi aadam markii la keenay riwaayadooyinku waxay u wada badan yihiin meeshii u horeysay ee markii dhulka loo soo dajiyay lagu dajiyay jiday ahay waa mako 7 kilomitir u jirtaa qaarkood maka lafteeda ahayd bay leeyihiin riwaayadu khilaafsan yihiin dhulkii noocaas ay ku noolaayeen ee intaasoo qarni ah lagu soo noolaan jiray waa dhul isu dheelitiran marka dadka marka macaan ba inta badan lama aqooninba hawa jirtay qofkii dhis buu la iman jiray waxa sonkortaada guban jirtay laakiin hadda way kugu fadhiisani markaas diin iyo balaad daba wareegaysan marka rafaadka waxa iyo diin u bahrayn waa iska saba baasha iska socotay de waxa ugu way raaxaysay kaar ba ku dhacday socod ma jiro hadda socoto haddaad laba jeer socotood buuraha korto marka haddaad korto oo baaridba waa mil mata idin sheeg waa god weeyis inta leeyahay mareeyay laakiin haddaad u tagto carabtu hadda heerka ay gaareen ilaa dukaan buu gadanaya hadda koran waa idin sheegay meesha farbacdeed buu dhigani shaahi iyo qaxwadii iyo wixii dhan baa u yaala uu iska baraaqaaba soo meesha hadda ma dhaara kuwa inta hadda taxi meesha la soo diri dukaamadii aan wax ka gataa ee marka qaarkood emailka ay isaga dhiibaa dhar hayeen barki dhar waxa sarhayna discount baa jira ciid waxa jirta holiday baa jira baqtiga shubayaan kan waa iska fadhiya halka yalla waxa rabtaa u sakaale shayga wuxuu kale waa inta wardaba ku ceshay shubarayaan niba ma mahay warna maxay ka bixisay baad dhig duurkii marka la gaar albaabka uu xiri gurigiisu iska aadi hadda casrad intuu yimaado iska furan kurbaba ma hayo khamiiskiisa waxa khamiiskiisa sakana inuu saa u taagay hodmood ma birba la mariya dhii si u taagay waad yaaga hadda u fiirsado aragtaan khamiis wada u dhalaali oo culimada hadda arkaysa hadda inaga silcisanaysa soo dudubay halka waxay ka soo taagayaan saa baarsa u taagayo xaragi iyo waxaan bay ku jiraan marka nimcada meel haysan barigii hore dhul gubtay ku jireen marka marka habu sharaab ila rasuul sallallahu al-halwu البارد وحم معاني هذا قبو حدثنا محمد بن مريم حدثنا اسماعيل ابراهيم حدثنا علي ابي زيد عن عمر وهو ابن ابي حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحي دخلت وان قال مع رسول الله رسولك انا الله صعدا ايانو قال انا دخلت انا قال رسول الله قالوا قال انا وخالد ابن وليد على ميمونة أيانو قال لي
ميمون أنا قال لي وهبريرته خالد إيو عبد الله بن عباس ميمونة وحاسك النبي عليه الصلاة والسلام هاي هبرير بواحد عربتنا أنت بدني عبارة ويسكي استعمالي شرتي على الميمونة فجاءتنا وحينو كنتي بإناء ويل بينو كنتي أو من لبن عانا كتير أي نو كنت ويل أو عانا كتير كنت فشرب وعبي رسول الله بعبي صلى الله عليه وسلم رسول الله بعبي صلى الله عليه وسلم وأنا على اليمين نبي وحن كفري حق مديك عبد الله بن عباس وحوليه نبي أنا حق مديك بقى كفري وخالدنا وكوينانا عن شماله لنك بديع كفري فقال وحوي لي رسول الله وحوي لي الشربة عبتانكو لك أي أدو كوسو ناتي عبد الله بن عباس أضع إسكالم هاي لي لنك بديك بقى تشوكتا لنك بديك على حق له فإن شئت مرك هداد دونتا آثرت وحسين كرتا بها خالد ودوري كرتا وحدي كرتا خالد وأدا إيجويني هرت صوك بو عبد الله بن عباس عاقل وها ما هندتك إن أنتو بيها يا ضفار كدرجي ماشي هذا كريها ولا واويني وحوها ندين دون وها وعلمك كله دقيسوا وحصابين دون نبي يجيب عصده وحكوي نيكن وكاوي هاي حدا دونتو إسقى وجد بيه وكاسه هرمرة أسوء عبده نقولهم كرا فقلت وحالي ما كنت مئه لا أثر متسين هي مئهوي ما بصير هي محاسبة بقى على صورك هم برا ما أحد نصين معي ومحور ربا بزور ربا والفرس محور ربا مركب محور ربا انتو النبي فيرس هذا ماشوا أفرا كساري وكساروا ربا وقف كالوصالك أو نافين بركو ديدي هيا نبي الصحابة يقولون هيا النبي انتو فيرس هذا markuu caaraha ka baday wuxuu fiirsanahay uu daawanahay inaga hadda ninka sheekha ama caalimku wax dad yiraahdo barsidu ama wax uu macnaynahay ama sida wax uu sheegahayo ama sida uu maaragtay dadka uu wacdinahay ka qaad qof oranaya ma jiro iska dhageyso meelahaas iska mashquulsan tahay culimaduna waxay ka mid tahay waa waratatul anbiyadii ay booskoodii taagan yihiin inaad ixtiraamto inaad maaragtay u baarinimo samayso inaad maqasho lagaaga baahan yahay hadaad dhaaribto cilmi doon aad tahay soo inaad ku dadaasho ma aha ereyga marka soo haray waxaa weeye Abdullah ibn Abbas oo muusan kama ahayn doqonnimana kama ahayn aqal xumana kama ahayn wuxuu ka doorbiday arintu markay xaq timaado oo arintu ay timaado wax diina markay timaado ninna wax diina hayska siin oo fiirso adiga ya hadda kaba soo qaad safka hore ku jirtaa waxaad ogtahay safka hore inuu ugu fadli badan yahay salaada safafka ugu fadli badan inuu yahay hadda qof kale tira kaala safka hore gal ka war way banaan tahay laakiin ajirkii waa iska sii soomaha marka saas oo kale culimadu waxay leeyihiin wixii ajir badni iyo khayr badni keenaya ayaa laga qaadan karaa qof inuu isagu naftiisa ku hormarin karo hada kama fahanteen oo tusaalahan oo kale waxa kamid ah Abdullah ibn Abbas wuxuu leeyahay nabiga meeshuu afka saaray ee hambadiisa uu ka saaray inaan anigu qof dhaafsada ma doonayo waa barakadoon wuxuu rabaa nabigu inuu barhay weelka cuntada aan ku cabaan mahawsan buuxa ninka waalka suuys hadda waa soo markaysid nabigu halka weel baba soo hadda ma inaa soo marin arzagas fadda soo ma inaa soo marin nabigu hal weel buu haystay halka weel ba Abdullah ninka la yiraahdo ninka la yiraahdo soo hadda ma inaa soo marin muxuu ahaaye Aris bin Malik inuu yiri weelkaas nabigu sharaab oo dhanba ku siiyay marka sheekadu waa weelkii weey waxa la hebelka weelka wadi meehe hal weel baa la wadaagaya inay hadda inagu idinkoo dhan hadda in qofku bakeeri wax ku cabaad ku cabtay meeba goshahay laana maraykan baa tahay fiirahaaga ku weyn waxa lagu baray uu James baa dhici waxba dhacaysa waad ka carraysaa soo moogid ilaa nolosha keen laakiin haddaad baadiye lagu geeyo hadduu dhooqa ka buuxa waad la cabilaad Soomaa way dhibkii baan ku hayay qof haddaad arkaysa waxa ma yeelahay James dhooqa hadda ku tiraahdo dhibkiisu san helin waxa ticay damba ka gali maysi
oo maxaad waayahay nacnac wada dhuuqdaan hadduu jeeris wala geli maayo wiil ama da'daada oo nacnac wata arkaysa oo dhuuqay arkaysaa aboow aan ku dhuuqad hadda Soomaa soo jeeris ma laha isagu waxa marka waxaad rabtaan waad cuntaane wixiina rabin bayna ku ciyaartaan Soomaa waan soo yahay yaa la isasiraya haddii labana nooc kala nooc arkaan way tutasi garaysaanoo kaaga aan dhabiya kayga dhabi Soomaa isku meel baa laga taabtaa waxba yeela isasir marka sunnada hal la ilaaliyo in la wadaago oo hal weel bas wal isla wareejiyo wax mushkil ah male wax mushkil oo ilaahay male nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabadiisa wax qof oo ku dhacay hargab ku dhacay ma jiro qaahana kuma dhicin wax ku dhacay lama arag wuxuu isu gudbo lama arag waxa waa jinka soo baxay waa lugooyi yaa waxba isku lugeen markaas wuxuu yiri hambada u doori mahayo marka wuxuu leeyahay inaan qof kale u gudbiyaa ma markaas wuxuu yiri faqultu waxaan ma kuntu liuthiru qof u gudbinahay ama siinahay meehi ala suurika hambadaada qofna isaga gudbin mahayo siin mahayo thumma qala rasuulullaahi wuxuu yiri man at'amahu allah qofki ilaahay cunto uu quudisiyo دعاما إلهي قفك عنتصيه فليقول هاي يراهدو اللهم الله يو بارك لنا نو بركة فيه إله عنتص نو بركة وزدنا منه إله نو سياد حده ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله قال اللهم بارك فيه وأطعمنا هنو يقوم بشركاسه اللهم بارك لنا إله نو بركة فيه عنتدن نو بركة وزدنا منه نو سياد maxaa kugu jira marka halka وأطعمنا خير منه ومسقه الله عز وجل لبنا فليقل ergaas عامل لبن بي اللهم بارك لنا وزدنا منه maxaa ku sii xiga waxa ka horeeya ha man at'ama Allah ta'ama miya laban miya ku jirta تمام أنت ويقول من أطعمه الله طعاما إلهي قفك قودي طعام أوصيه فليقول هيري هذا اللهم بارك لنا إله نو بركة فيه طعامك نو بركة وزدنا منه إله نو سياد فين تسمعوا وافقين ها وأطعمنا خيرا منه ها وأطعمنا نقولي خيرا منه مد كخير بدنا نقودي وكان في عيال نصيبي عباس مديديسو ثم قال وحي رسول الله ليس شيء متشيرو يجزء قدهيا مكان الطعام بوسكا طعامك وحقدهيا والشراب شراب غير اللبري انا وحان هينو بوسكا قدهيا او بوسكا كو بوحين كراي متشيرو يعني وحو يري ما ليس معها شيء بتشيرو سيف عنك هلك وان خلده ليس شيء بتشيرو يجزئ غدها هي ابا بوحنا هي مكان الطعام طعامك بوسكيد بوحنا هي iyo والشراب شرابك بوسكيد بوحنا هي ما جيرو غير اللبن انا waxan ka ahay halka ma fahanteen aanuhu waxay ku gali karaan booska cuntada iyo booska cabitaanna waa yihiin cuntada waa yihiin laakiin sharaab kale oo labadaaba buuxin kara haddaad biyo cad ka dharagto ama qaro la miiray ka dharagto ama isbarmuuto aad ka dharagto weli caloosh way haawanaysaa oo cunta u baahan tahay laakiin caana haddaad cabto caana labadiiba way kuu buuxin wey oo cunto ahaanna way kuu noqon sharaabna way kuu noqon weliba geela geelsida waxaa la yidhahdaa wuu maqan yahay baadiyo uu ku maqan yahay caano uu biyo uma baahdo marka booskiiba u gala caanaha geelu xadiisku waa xasan qaala abu ciisa wuxuu yidhi haakada ruuya idinkuma taala soo maha warkaan badan ee aniga ii dalda idinku kuma yaali anugu waa war dheer u galay halkaasuu xadiiskan ku joogaa baabu maa jaa في صفة شرب الرسول صلى الله عليه وسلم رسولك حديثك هو كان أكو خلدي حديثك هو النبي سوى عبد شري كان عقاب كي وروحوها وعبد شري هاور وان كخلد حديثك هو اللي شري في صفة شراب هو شراب وي شراب كان النبي سوى هاوي
كان كلام عيري باب ما جاء في صفة شرب الرسول صلى الله عليه وسلم سيد وحو عبي وفيه وحكو صورا هو هاي 10 أحاديث طبعا أحاديث باكو صغير. حدثنا أحمد بن حدثنا أبو الشعبي حدثنا عاصم على وغيره عن شعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما وحوي لو الله كرايه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وعبي من السمسم بيها سمسم كوعبي وهو قائم سوى تاجم بعبي وهل كان حديث كاسم حوت المامي إن استاج وحلو عبي شرب وعبي كرم أنا النبي صلى الله عليه وسلم وعبي أن النبي شرب وعبي من السمسم بيها سمسم كوعبي وهو قائم والحال قائم كتاجم وياي. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن جعفر عن حسين معلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال وحيي رأيت وارك رسول الله بركة يشرب عباية قائما يسوي تاجن يو قاعدا سوى فلو يسوي عباية لبضه يسوي استاج إيو محوه هاي فرد بوكو عباية صعد ما هي صعد كله ما هي حدثنا علي بن ابي طالب حدثنا عن عازم عن شعبي عن ابن عباس عنه قال وحيري سقيت وان ورابي النبي صلى الله عليه وسلم من الزمزم النبي زمزم كان كوريه فشرب وعبي وهو يسور قائم حدوا اسكو ميدو وان اسك ديرينينا اسغي او ماركتي تاغن بعبي تاغن بو كعبي. حدثنا ابو كريبه محمد بن ودك كان روح على كطبيخ صار انه اردينين عبنا صوما ومحمد بن طالب على قال وحيري هذين لها ماشي عن قوة تطبيقنا على بدنا واسكين كار ترى بنا وحن أورن لها أنت هالك كوتشيو عن كلمة دم سماية واحد اللي يراهدو عن دول استاجو وحاجة سريع أحاديث كهالضي أحاديث وحاجة سريع كهالضي صار النبي عليه الصلاة والسلام إنه قريبي إن استاجو حلو عبو وأنا أحاديث صحيحة حديث كروان مغلى سنة صحيح والنبي وكعبي بالي هذا علماء ماشى فود يسقط عليه هل كاس الرباين إن كدر استعوسي إن هدو يكون قالوا عنه لين حديث وطن نهي أو أضو بيكعبها استاج كعبها يدو كوي بدو كوي هذا النبي وحو يري يالوعب استاج وحلوعب حديث صحيح ومسلم وقرمك كوي هذا ويسد ويكعش بيصا حديث كنوال هيستها سين مكان اللي وحال يري باليري لبدا أحاديث بواسبي لكن علماء وحي هذين هو إمام النبي وليبا أوه الرئيو وحي ليهين نهي قارن هاي اللي جمع بكر استهجاسي والنهي تنزيه نهي تنزيه عربي أن يكون شيء محوي هاي تيبيتان كل الدين هاي أي الله بقى بدو حاول يريبيتان بنانين أون الله بقى أقولين حرام بقى من ولا في عيان وقال سمع استاج إناد عادة كرجعت إناد بيها كعبته هذا هيلي كر إناد فريسته ولا في عيان هذا هيلي كرتو إناد فريسته فريسو عب ولمنا هذا الرجل ماركتي عافمات البرها ينرتشوجي ولماذا قارك ودبوا وحيبليه يهمبا كعافي مال أهم بين استاج إناد كعبته عادة كرجعت هاي عافمات كيد باتو كيسانيسا oo caloosha laftigeedii sidii ay biyaha u qaadan lahayd ama biyuhu kaaga orday biyisi orday ku dhaxmaray sida darteed ka caafimaad ahaanba kuwaba fiicna caado inaad ka dhigato in istaag wax ku cabto intaan wada soo baari kartaan xagga caafimaad ku saabsan culimada qaarkood baba doodba waxay qabaanba caafimaadkaaga khatarba ku tahay in istaag wax ku cabto hadii orodna warkiisi hadda fadh istaag baba laga hadlay orodna hadda kaba sii daranba هذا الصعود أردها وركي إسكيب الدع ورك هذا اللي سواه يبغى حاوي إن أنا ما ركتي عن أديجي أو فردقو لكن وحنا وربك التاجنين فردقو سوور كم التاجن واسدة دقن كعادي إعادة كدر سطي مرك إن شاء الله هل كهينو شوكتو إلا كان فافعين إن شاء الله جزاكم الله خير مالك حديث بالرعية أوكي بسم الله حدثنا أبو كريب محمد بن علاء ومحمد بن طريف الكوفي قال وحيد عليه حدثنا ابن فضيل عن أعمش عن عبد الله بن مصين عن نزال عن البصرة قال وحيد أوتي وحالو ليمي علي رضي الله عنه
bikuusin koob ayaa loo keenay koobkaasoo minal maa'i biyo ku jiraan wa huwa isaguna caligu fii raxbatin meel bannaan ayuu joogay weel biyo ku jiraan ayaa loo keenay fa akhada waa qaaday minhaa kafan ayuu ku qaaday kafow ku qaaday fa qasala yadayhi labadiisa gacmood ayuu ku dhaqay wa madmada wuu ku luqluqday wastanshaqa wuu ku sandaarsaday wa masaxa wuxuu ku masaxay wejigiisa iyo wa diraacayhi labadiisa dhudhun iyo wa ra'sii madaxiisa ayuu ku masaxay uma shariba minhu wuu ka cabay wa huwa qaa'imun isagii oo taagan uma qaala wuxuu yidhi haadaa taa wuduu'i rasuulillahi rasuulka waxaa weysadiisii man lam yuxdith qofkii aan wax kale ayna ku imaanin saasuu nabigu u weysaysan jiray hakadaa buu yidhi ra'aytu waan arkay rasuulallahi rasuulka facala sidaas samaynahay ayaan arkay buu yidhi xadiiska aan soo yar dhaweyno xadiisku laba macno ayuu madaxa suu kaa geliyey macnaha koowaadi waxaa weeye oo kuu tilmaamahayo cali bin abi aalib radi allahu canhu ood garanaysaanoo nabiga ala sl adeerkiina khaliifkiina ummadda gabadhiisana qabay ayaa muxuu ahaa waxaa loo keenay koob bikuus koob baa loo keenay koobkaas oo biyo ku jiro raxba waxaa la yihahdaa meesha bannaan ayaa la yidhaahdaa loo keenay marka wuu qaaday kafkiisa iyo gacantiisa ayuu ku qaaday markaasuu wuxuu ku dhaqay labadiisii gacmood waa koob biyo ku jira fiir hadda bal inagu hadda meesha laga hadlay waxaa weeye sida biyaha in loo tashiira la doonahay israaf baan samaynaa soo ma ogidin welibana nabigeena calayhi salaatu wasalaam dadka wax israaf horta ma taqaanaa israaf maxaan ku dhahan ingiriis ba lagu sheegaa khasaare weli ma garanaysaa khasaarin qofka inuu wax khasaariyo wixii wax uusan u baahnayn weliba khaasatan innaga sidaynu u badannahay qof aan waxaa samaynin ma jiro tuubadaa tagi waysaad rabtaa killi baa musqushii yaalla tuubada weyn baad meesha maxaa dagaalamayaa dhe qofkii muxuu rabaa in yaroo weysa waxaa laga yaabaa qof dhowr qof wax u qabayn lahaa inuu qofkii weyse un ku daadiyo oo maxaa ka macnaa god bay galhayaan waayi maysid miyaa war ummad baa biyahala biyaha moodina ciyaar ma ah marka meesha maxaa ku jira tashiil koobkii keliyeeta cali bin abi aalib maxaad dhihi doontaa talow nin yar buu ahaa miyaa oo se u deeqday laftiisa iyo xooggiisa maada maraynay intiina haddii laisku daro gacantinta ila akay ilaahay quwa siiyey cali bin abi aalibkii sidaas ahaa ayaa wuxuu sameeyey labadiisii gacmood buu ku dhaqay markaasuu haddana luqluqday markaasuu haddana sandaarsaday markaasuu haddana wejigiisa iyo dhudhumadiisan ayuu ku masaxay markaasaa weliba intaa markuusa biyo intay oga soo hadheen bu haddana cabbay cajiib bal isku dar intuu sameeyey markaasuu wuxuu yii haddana isagii oo taagan ujeedaduna waxaa weeye in istaagana wax lagu cabbi karo waana xadiis saxiixa weeye istaag buuna ku cabbay markaasuu haddana wuxuu yidhi sidaa ayay ahayd waysadii nabiga calayhi salaatu wasalaam qofkii aan waxba ayna ku imaan wuxuu ka wada ayna ku imaan wuxuu yidhi muxuu ahaayey hadduusan muxuu lahaa man lam yuxdith hadduusan wax ku imaanin xadaska laga wada waxaa weeye waxyaabaha weysada buriya sida neefta oo kale sida kaadida iyo saxarada oo kale waxyaabaha haddayna ka imaanin qofka weysadiisu waa sidaa macnaa qofku wuu iska weyse qabaa wey lama sheegin adoo iska weyse qaba wey hadduu qof weyse qaba wey adoo weyse qaba ayaad waxoogaa gacmaha yar mari yar masax sidaa yar waxoogaa yar qabowsi baa la yidhaahdaa yar qabowsi baa la yidhahdaa qofku waxoogaa dhalaxadii yar jirtay wejigii xataa muxuu ahaa mid inoogu sheegay wejigii wuu masaxay un basa wey waxoogaa dhalaxadii ka yar turtuur wey adugu waa boorka afuuf wey qofka sidiisuba
waysada waa la ogol yahay inaad salaadaha hore haddaad wayse qabto ku tukato laakiin sida fiican waxaa weeye waysada waxoogaa inaad tajdiidiso kolba cusboonayso haddaad suuro gali weydana waxoogaa yar dhammaan dhabo saa isu yar marmari oo yar waxoogaa qurxi oo waxoogaa boorka iska afuuf qof nadiif aadana doonaya saasaan rasuul ku arkay biir aataa rasuulullah utiya cali baa loo radiyallahu anhu baa loo yidhi bikuuzin koob baa loo keenay oo min maain biyo ku jira wahuwa isaguna fi raxbatin meel bannaan ayuu joogay فأخذ منه الكف أيو كقاضي فغسل يده قعنتيس أيو كدقي ومضمض واللقلقضي هوت اللقلق الشذا هي صندار شذا واجب سموه دين إن لا اللقلق صندار شذا واجب لا صعد واستنشق واسكسو فردية اللقلق شذا وحاول بيو صعف أو شبطه استنشاقنا وحاول صوتفته أيالي هذا ومسح وجه يصير ومسحي وذراعيه بمديسي ورأسي مدحيسي ثم شرب منه وكعبي وهو قام سوى التاغن ثم قال وحيري هذا كاس وضوء ويسدي وي وضوء هذا وضوء ويسوي من لم يحدث قفكي عن وحبة درين ويسدي سوي أو واحد بعناها واحد كتبيا وصو إيماني وي هكذا سلاسة رأيت كأرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلي سوى صابين وبالله توفيق تفضل قالوا وإيه تاغين سوده استاج صوب عبي صور النهينة لو ده حتى صور هي هذير الله كور مركو استاج عبي جري مركو واحد عايبة هذا عين حتى هدوء حديثك كصور هذا رالع horta anu say culimadu dhahay maashii waxaan waxa weey hadda culimadu ma inaan xadiis kana horeeya iyo kana horeeya ma inaan dhihinay culimana waxayba ku tageen ma banaanaba sidooduba istaagi lagu caaba ma banaano culimana waxay yiraahdeen warka daayi oo axaadiista waa la iswaafajin karaa oo hadii la yiraahdo de istaag wax lagu cabi karo oo xaramka adoo tawaafahayo marka samsamkan cabad oo inta marka dawaafayso todobada aad saciga sameynayso oo ba hafka afa ku iman meel aad fariisatana male cudurdaar marka inuu yimaado wixii daruuro keenta ama meel markii saasoo kale ku suurta gali weyd ama adoo degdegahaya oo mital waxaad gashay muxuu ahaayay meel biya tartay inaad ka cabto meesha biyaha laga cabay afka laga sudhaa meeshii yaal waaba la taagay fadhiba male istaag baa loogu talagalay lagu cabo diinta alla iskaga dhigo wax kooban marka haday dib jiro oo meel ayna suurtagal ka ahayn inaad fariisato aysan kugu adag tahay oo ama aad degdegayso istaag iskaga cab way banaan tahay hadii kale oo heli karto meel aad degan tahay oo dib uu soo guriga iska joogtaa soo qaado kursiga ku fariiso tartiib fadhiyo ugu cab labada wajiba loo sameeyay billahi tawfiiq marka taas aan u jeclaystay يا شيخ أنا سؤالك بدين يعني كولا ولكن والله شقيا بس شقيا وحلوسينا يا 200 من عمل قبل الصلاة دي المغرب جوبته أو ما عصر يعني هدي أنت كلا وتكلم لكن sometimes كبير أنا ما أتكلم استيبنو حسب إن كبير ولقيا وإن البورصة ما نسا ما القوم وواقع مصروف بعض بتاع وحقين بعض بونسا أما على بعض من البورصة وصل لكن واحد نجاسة ما يسوق جاري يعني كبير هذا بتي وبنان دائما كنا كبير كل كم صحراء أسكسو تكتو أي بنان بدك لا يبقى هذه صون كي وقتي إلى أفري أكدب على طبعاً دقيقة عمر الكلام. أنت الأولي كرتا هرتا إلى الأولي كرتا إلى الأودب. هرتا ثيري إن يربط كده داريسا واحد سقط مرة قارفود شقوين كده تقول على قوضة شقية ولا لودوج يعني. أفكرت إنه وديري معي هذا حبط مرة ثيري. هرتا عفوا مية إن دركت مهمة دوما. ما يتاسك من هذه. ثيري وعقاد إنه حوي إن الأفرتوي. أفرك حبط مرة تقول أفرك كرتا. marka inta t-shirt ku duubato oo jeebka gashato markay gaadhama ku tuurid والله وقلها دي ماشي تحدينا لو كنت ادو شقه ما من afka igeliyo shaqada noocaas ay tahay aan kullee ma arag afka shaqada nooca la yiraahdo wato aan nooc kala weey hadda afka waxa uu gelin karimna laakiin ma biyo saacad wala laga yeeriyaa meesha ما كلها وكلها انت انا كاركاي انت شقه الى الافك ما في شيء waxaan sheegay baabuursan ايه لما شو عادي بس كده waxa asrayama
لكن مرة كذا أقول ساعات ممكن شفت أو واسكت صوت عنه ما ساعات نقاش مسدح بقول بتلاقي أول أنا شغال وهدي وحد دعان ووحنا لقيا شغال يدرو عادي وسلام عظيم وياه مركل هكا عضل هاي مركل هكا عضل إن شاء الله. أي صار.